waxaa maanta garoonka Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne lagu soo dhaweeyay wafdi isugu jiro ehelada iyo cuqaasha marxuum dhawaan lagu dilay bar control oo kamid ah baraha control ee u yaala maamulada fara badan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. odayaasha dhaqanka, culamaa u diinka, guddiga gaadiidleyda iyo sidoo kale dad ka socda bulshada rayidka ah ayaa garoonka Ugaas Khaliif waxay ku soo dhaweeyeen wafdigaasi cuqaasha iyo ehelada marxuumkii dhintay isugu jira oo iyagu u socda xalka marxuumkii halkan ku dhintay. soo dhaweynta waxaa ka hadlay odayaasha dhaqanka ee reer Hiiraan iyo culamaa u diinkii iyo guddiga gaadiidleyda iyagoo dhammaan u tacsiyeeyay ehelada halkan soo gaaray sidoo kalena soo dhaweyn u muujiyay iyagoo sheegay in wixii ka dambeeyana laga wada hadli doono sidii looga xaajoon lahaa arrinta dhacday. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على من لا نبي بعده. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين إنك ميت وإنهم ميتون إنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله فيكم وإحنا سوغن نمد وفدقا نوي مدينة صور وينو وحي كدن بينا سيدي عداشو شيئا والقوات هذا دون إن شاء الله تعالى كتابك لغو ميزة مدونا cadaaladda kitaabka ilaahay ku miisaman waa ku kala dhamaysan doonaa haddii ilaahay ramadaan waqtigu sii gaabin yahay waxaan leenahay soo dhawaada kitaabkeedan ku soo dhawaada walaalihiin ku soo dhawaada wixii allana farin waan samayn doonaa insha Allah taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaykum إخوة الإيمان والإسلام. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام hadalkii waa gaaban yahay oo nabadoonkii iyo waaska ayaa hore u sheegay waa soo dhaweyn wuxuu ka kooban yahay saddex arrimood. kow waxaan isku dardaarmaynaa inta meesha timid ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala si guud oo arrimahayna guud iyo si gaar ah arrintan waaqicada dhex taalo oo hadda hawsheeda meesha loo yimid in ilaahay aan uga baqno midda ayaan isku dardaarmaynaa. ثانيا waxaan ku xijinaa waa tacsi si guud iyo si gaar ah marxuumkii dhintay Allah u naxariiso ilaahay naxariiso jannada Allah ka waraabiyo dadkii uu ka tagayna sabar Allah ka siiyo gadaashiisna Allah nama fidneeyo. intaa ka bacdi kelimada saddexaad waxaan leeyahay marxuumkii dhintay iyo dadkii uu dilka ugu yimid dhammaanteen waa inaan xusulka aan u laabano u duubano si cadaalad degdeg labada dhinac bay ku heli lahaayeen. midda ayaan ku soo gabagabeynaa cadaalad aan ku dadaalno waqti gaaban si cadaalad ku heli lahaayeen. sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina Muhammad. waxaan joognaa airportkii Beledweyne airport Ugaas Khaliif waxaan ku soo dhaweynay walaalaheen nooga yimid dowladda Soomaaliland ama Hargeyso waxay u yimideen dib ka dhaca meeshaan iyo meyd ka dhacay. waxaan ku soo dhaweynaynaa walaalaheen salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib walaalayaal muruguna waa nahaysaa intaan in ka badan idinku soo dhaweyno oo magaaladu soo guurto oon aad idii karaamayna fiicnad laakiin waxaan la awoodi wayna murugaa nahaysa mayda noo yaal ilaahay marxuumkaas ha u naxariisto. adikana waa idin soo dhaweynaynaa salaan qabiilaan idinku soo dhaweynaynaa salaan hiiraanaan idinku soo dhaweynaynaa salaan ballaaran oo dad leh oo dal leh oo deegaan lahaan idinku soo dhaweynaynaa. walaalayaal wixii dhinta Allah u naxariisto ilaahay jannada ha ka waraabiyo xaaladiisuna hadda meel fiican ay noo mari. adikana waxaan ku soo dhaweynaynaa si walaalnimo leh oo ehelnimo leh oo kalgacayl leh oo murugubahana dhex taalo laakiin aanan xamaasadda ugu jirtay walaalnimadiina saan u rabno aanan soo koobi karin. walaalayaal soo dhawaada wixii kale si kale u geli doonaa waan soo dhaweynaynaa wixii dhinta Allah u naxariisto murugtaan idin la qaybsanaynaa annaga adika hoos marayna. soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada. بعد السلام maanta waa maalin murugo waa maalin meyd noo yaallo ayadoo ay tahay maalin jimco ah waxaan tukan weynay inaan salaadii jimcaha tukanno murugadana haysa daraaddeed walaalaheen dhibanayaasha oo uu ka geeriyooday ninkaan adeerka u ahay oon walaalka u ahay oon waaridka u ahay waxaan uga tacsiyeynaynaa dhibaatada iyo murugada aan la qaybsanaynaa waa u tacsiyeynaynaa raalli ahaadaan leenahay
diinta islaamka kolley dadkaanu culamadiina waa fadhiyaan inaan ku dheeraada ma rabo boqolkiiba boqol mar koowaad mar labaad mar saddexaad aan idin tacsiyeynaynaa ku soo dhowaada waxaan idinkaga tacsiyeynaynaa ninka dhintay wuxuu ka dhintay niman walaalaheenna wuxuu ku dhintay gobolka hiiraan waxaan joognaa waa gobolka hiiraan garoonkii magaalada beledweyne ilaahay idankiis waxaan jecelnahay in si degdega looga samafalo in walaalaheen murugada aan la qaybsanno in si cadaalada looga samafalo si degdegana ay ku dhacdo waa soo dhowaynaynaa walaalaheen marti oo noo yimid dembigooda allaha dhaafo ilaahay samar iimaan ha ka siiyo annagana ilaahay samar iimaan ha naga siiyo anoo ku hadlaya magaca gaadiidka gobolka hiiraan mar haddaa maqashaan gaadiidka gobolka hiiraan waxaan wakiil uga nahay wax allaaliya wixii ummada oo ma aragtay imaanaya awalan waxaan tacsi u diraynaa walaalkeen meesha ku dhintay maadaama aan nahay gaadiidkii waxaan alxamdulilah maanta ilaahay ku mahadsan yahay oo noo kulansan dhaqanka labadiisa dhinac oo u fadhiyo kulligood ka xun arrintii iyo qaabkeeda waxaana rajaynaynaa in si fiican ilaahay uu noogu dhammeeyo oo wiilkaas annaga naga dhintay gaadiidleeya ma aragtay oo cadaalad helo hadda waxaan haynaa dhaqankii waxaan fariin u diraynaa anoo ka faa'iidaysanayana waxaan fariin u diraynaa cid allaaliya ciddii ay qusayso awalba waa ka wada warqabtaan oo laamaha amniga ah oo heer federaal ah inay arrintan si degdeg ah ay dhaqanka labada dhinac oo isku yimid ay ugu dhagnuglaadaan wiilkaasna uu cadaalad u helo aan rajaynaynaa si degdeg ah 24 saac gudaheeda hadda haddii ma aragtay cadaaladii si degdeg ay u dhici wayso loo fuli waayo oo looga dabatigi waayana dadka reer hiiraan waa taqaanaana ma aragtay ayaka ma aragtay cadaaladooda iyo qaabkooda goobanaya laakiin hadhow nin masab ku fadhiya oo gobolkii aan ka taliyaa dhahayo ma ka aqbali doonaa haddii haddeertaan aan wax laga qaban dhacdadan xanuunka badan leh oo dhacday oo cuqubada oo ummadoo dhan wada saamaynayso in si degdeg ah hadda waxa wada fadhiya dhaqankii labada dhinac guddigii gaadiidleyda bulshada inteeda kala duwan walaalayaalow raggiinaan kaleeto oo maamulka cid walba oo maamul sheeganayso oo gobolka hiiraan sheeganayso meel walba aad joogtaan arrintaas si degdeg ah in looga falceliyaan rabnaa haddii rabbi idmo oo walaalkeen cadaalad oo helo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh dhanka kale ehelada iyo cuqaasha marxuumka geeriyooday oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay ka mahad celinayaan sida sharafta leh ee loo soo dhoweeyey isla markaana bulshada koonfur iyo waqooyiba uu ka dhaxeeyo mar walba dhaqan dhimashana ay imaanayso waxayna sheegeen in ay halkan u soo gaareen xalka arrintaasi iyagoona sheegay in ay eegi doonaan sida ay reer hiiraan u ambabixiyaan ama ay tabashadooda u xalliyaan intaa kadib waxaan u mahadnaqaynaa bulshada qiimaha leh ee reer hiiraan haddii ay tahay madax dhaqameed waxgarad guddidii gaadiidleyda dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee soo dhoweyntan qiimaha badan leh noo sameeyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa kaloonu ugu mahadnaqaynaa xidhiirka qiimaha badan ee ilaa hargeysa markaanu ka imanaynay ilaa iyo saacadda sidaa heeganka u haydeen ee noogu diyaargarowdeen aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu si khaasa ugu mahadnaqaynaa dareenka aa muujiseen ilaa maalintii ciiddii mudaharaadada laga wada damqaday ee dhammaan wada bulshada gaadhay aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa sida uga falceliseen dhacdada intaa kadib waxaan ilaahay uga baryayaa marxuumkaa geeriyooday in ilaahay subxaanahu wa tacaala ee qabriga u nuuro jannadiisana ku casuumo dembigiisana dhaafo waxaan kaloon ilaahay ka baryayaa inuu dhammaanteen samir iyo iimaan inaga siiyo khaasatan qoyskii uu ka baxay oo uu nala socdo inanka aabbihii iyo mulkiilihii gaadhigaasoo ay ilmaadeer yihiin
iyo dhammaan odayaashii ahalka ahaa ee halkan maraya iyo bulshadii aanu ka nimiba waanu ka taxsiyeynaynaa. intaa kadib kolley si dheer baanu soo marnay, intaana telefoonadeenna iyo xidhiidhkeennu joogtu ahaa. ilaahayna waxaan ka baryayaa hawsha inoo hadhayna inuu si sahlan inoogu dhammeeyo. qof waliba waa geeriyoonayaa, geerida wuu dhadhaminayaa. waxaa muhiima uun in si wanaagsan oo gobonnimona looga wada xaalo oo hawshaasi loo dhammeeyo. waananu rajaynaynaa sifaha noo muuqdaa inaynu insha allah si wanaagsan inoogu dhammaato. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. dadkan islaamka ee wada dhashadee sheekh iyo shariif bale dhammaantiin waa salaamantiin, ama khiyaarta beledka ha noqoto, ama gaadiidlada ha noqoto, ama sulaadiinta iyo cuqaasha ha noqoto, ama dhallinyarada ha noqotee, waa salaamantiin. salaanta islaamka ugu qaalisan ku salaam. salaan kadib aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. caaqilkii iigu horreeyaa sheegay ilaa Hargeysa ilaa halkaa imaka aynu isugu nimi wixii ilaahay qadaro way dhaceen, laakiin soo dhoweynta iyo wada hadalka iyo sidaa noo soo dhoweysan waa idinka mahadnaqanaa. sida kale nin walba halkii alla u qadaray buu ku baxaya, habeenkiisana wuu baxaya. inankaa marxuumkaa waa u ducaynaynaa. habeenkii alla u qadarun buu dhacay, uu dhintay, waa u ducaynaynaa. isagana waa u ducaynaynaa. dadkii uu ka dhashayna samir iyo iimaan saadiqa allah ka siiyo. idinkana diyaa idinku waajiba allah ha idiin fududeeyo, allah ha idiin fududeeyo. annagana samir iyo iimaan allah naga siiyo. intaa waxaa weeliyaa kolley lahjadaha waynu waxoogaa waxa inagoo wada dhalano walaalaa, haddana lahjadaha waxa laga yaabaa inaynu meelo ku yar kala gidsanay. waxaa la yidhi islaamba reer ka goday wax reer loogu maahmaaha maahe, dabeedna si wanaagsan baa loo aasaa la yidhi, si wanaagsan baa loo aasa. dabeedna waarisantii ka warrama aas wanaagsan baa u dhacay baa la yidhi. allele waa haddii fidiyo qoroqaadka u raacaa baa la yidhi. fidaha iyo qoroqaadka waa isla garanaa baan u malaynayaa. waa hadduu u raaca reer beledweyne una soo dhoweyse waana idinka mahadnaqnay. laakiin waa fidiyo qoroqaadku waa sidaa hawsha u gashaan ama u dhammaysaan ayay taasu daaran tahay. dib baanaynu uga wada hadli doonaa. hoosba hadalla baa la yidhi. annagana samir iyo iimaan allah naga siiya, idinkana gashigiisa allah idiin fududeeyo. hadalkeenu kolley dee waa hordhac, wuu badan waynu isla qaadaa dhigin. mayd baa inoo yaalla, arrinkeennu wuu badayey. dee wixii inoo hadhay waynu isla jeexjeexdona. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigu waxaan ka hadlayaa horta soo dhoweyntana na soo dhoweyseen cuqaal iyo waxgaradba iyo gaadiidley ama sirheer beledweyne 100% baa tihiin. waanaanu idinku mahadnaqnay taa. weli samaynaan kala fulina waa dee horta waynu isu nimuun. halkana durbo waxaanu ka sanqarinay diyo. maanta diyo iyada uma soconno, qisaas baanu u soconnaa. qisaas ayaanu u soconnaa. halkaa waxaan leeyahay yaa hamoodina dee waxa ninkaasu wuu inaga wada baxay kulligeen horta Soomaaliya. nin mutafacahoo dee dariiq marayo ummadda wax u qaada buu ahaa. gidigeenba nin wax inoo taraya waa wax kasta ha taraya. dee reerkii uu ka dhashayna uu ka sii baxay maanta. samir iyo iimaan ilaahay gidigeen baa inaga wada siiyo, annagana ilaahay samir iyo iimaan ha naga siiyo. laakiin lama soconno maanta diyo. nin nagu qaaliya buu ahaa, ilaahay ha u naxariiso, waqtigiisii buu baxay. abtal dariiq baa alla ku sababa. waxaanu la soconnaa qisaas baanu la soconnaa, waanaynu ka wada hadli doonaa
sidaa aad noo soo dhaweyseenna waa ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol nin walibana wixii candhagel waxa la candho xoolaad wixii uu gashado ayuunbuu leeyahay daynu maanta u wada hadlayno dee xaggan koonfureed iyo waqooyi dee taanas imika aan nagu soo dhaweyseen waanu idiin haynaa marka ugu horreysa tase waxaase inoo aynu ku kalaanbabaxaynana iyadana dee halkaynu dhignaa uunbaa iyadana inaga dhaxaysa assalaamu calaykum waraxmatullahi